ceebtu ma ahan inaad kufto dhulka ku dhacdo, balse waxaa ceeb ah inaad sii jifto bartii aad ku dhacday. Dadka waalan waxay dhaamaan dadka noloshooda ku xidha duruufahooda iyo rabitaankooda, waayo kuwa waalan waxay sameeyaan waxay go'aansadaan, kamana walwalaan berri, shalayna maba xasuustaan. La yaab ma leh inaad u socoto jiha ka duwan jihadii guushaada, balse waxaa in lagu qoslo mudan meeluu horey u soo maray. Dad waxaa ugu liita kan dadka ku naca muuqaalkooda, balse waxaa ka sii liita kuwa sidaasi ku jeclaada. Maalin walba haddaa maqasho ereyga guul oo dhegahaaga ku batay, wax kale ma ahan waa inaad kor u kacdo boorkana iska jafto. Marka muuqaalkani kuu dhammaado adigoo leh Ilaahow adigaa mahad leh, iga soo baraarujiyey habowgii iyo diyowgii nolosha. Qof walboo nool naftiisa ayuu la hadlaa. Haddii aad ku qosasho kuwa isla hadla oo aad ku tiraahdo way waalan yihiin, maya, kuwaasi ma waalla, ee wadahadalka naftooda ay la hadlayaan ayaa buuq gaadhay. Ilaan adigoo markii aad qof la buuqdo kor ayaad u hadashaa. Xikmaddu ma ahan tan aan kugula hadlayo, ee waa tan aad igu dhegaysanayso. Balse xikmadda labadeennaba laynaga rabo waa ku dhaqanka xikmaddaas. Dad badan ayaad arkaysaa iyagoo kugu xukminaya muuqaalkaaga. Qofka fahansan waxa uu eegaa culayska erayada, balse ma eego tirada daqiiqadaha. Ciiddu malaayiin jeer ayay ka badan tahay dahabka, lamana qiimo aha. Xikmadda aan idinku soo afmeerayo waa waxbixinta. Bixi idinkoon sheegayn, qalbigiisa ma dareemo cunfi iyo ciriiri kan wax bixiya.